laasacaanood waxa ka dhacay ma aha wax Soomaalidu ay aragtay marka dib loo dhigo burburkii dawlad-dhicii dhexe ee Soomaaliya xilligaas oo kala had ka dhacay geeyiga Soomaalida gaar ahaan Muqdisho oo lagu kala baxay xilli xamaasadda qabiilku sarreysay dagaalada qadhaadh ee ka dhacay Soomaalida dhexdooda 20kii sano ee u dambeeyay waxa ugu culus midka maanta ka taagan laasacaanood magaalo ay ku noolaayeen ku dhawaad 500 oo kun oo ruux oo nooc walba bulshadu ay joogtay ayay Somaliland duqayn iyo madaafiic aan loo aabayeerin oo kaga soo qaaday shacab isdhexdaadsan oo noloshooda si caadi ah isaga wata madaafiicda hubka iyo moodarka maamulka Hargeysa uu ku garaacay laasacaanood ma aha mid adeegsigiisa loo sameeyay in loo isticmaalo magaalooyin ay buux dhaafiyaan dad rayid ah madaxtooyada Hargeysa iyo taliska Musabbixi waxa hor yaalla meydadka hooyooyin carruur dhalinyaro iyo dhaqaatiir ay ku laayeen duqaynta madaafiicda ee laasacaanood ay ka geysteen kuwaasi oo ahaa dambiye caalami ah oo ka dhana xuquuqda aadanaha dhawaan hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda insaanka ayaa sheegay in laasacaanood uu maamulka Hargeysa ka geystay gabbood fallo ka dhan ah nolosha dabiiciga ah ee aadanaha qofka ka maqan laasacaanood ma sawiran karo dambiyada dagaal iyo xaqiiqooyinka qadhaadh ee Somaliland u geysatay shacab u doodaya rabitaankooda dhacdooyinka argagaxa leh ee ka dhacay laasacaanood waxa kaliya dareemi kara goobjooga xaadir u ahaa markii ay wax dhacayeen inta badanna dadka reer laasacaanood waxa hortooda ku nafbaxay ehelkooda oo aan waxba galabsan si aan u soo gudbino xaqiiqada ay gaarka la yihiin duqaymaha laasacaanood waxaan u kuurgalnay guud ahaan xaaladda magaalada laasacaanood waxaan booqday guryo burburay dhaqaatiir dumay masaajiddo dhulka gashay iyo xafiiska guddiga oo laftiisu sigtay waxaanu ku kulannay guddoomiye ku-xigeenka guddiga deegaanka Abshir Cabdicasiis Sheekh Maxamed oo iga warbixiyay saamaynta duqaymaha maamulka Somaliland u geystay dadka reer Sool السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ku duubaynaa waxyaabihii ilaa bishii February dhacdooyinkii magaaladan ka dhacay duqayntii iyo garaacistii iyo burburintii iyo layntii ciidanka ka soo duulay Burco Hargeysa Boorama iyo Berbera iyo Gabiley ciidankaasu hubka noocyadiisa kala duwan ee uu soo riday waa kuwa saymbolladii laga soo qaaday halkan ay intoodii badnay taal hal qori marka laga reebo madaafiic baa ku jirta hoobiyaa ku jira basuuka ku jira qoriga biitanka la yiraahdaa ku jira rasaas kale oo kala duwan baa ku jirta hal qori uun baa ka maqan inta hadda halka ka muuqata saymbolladooda waxa ka maqan qoriga rocketka la yiraahdo BM-ka isagana waa haynaa gumciisi waa yaala waa ka halka ka muuqdo oo halka taayirka dhex yaala gumciisi waa yaal isagana hubka kani markaa wuxuu isugu jiraa madaafiic mortar iyo electric missiles kuwa kan la yiraahdo rocketka kuweela BM-ka uu isugu jiraa waxyeelada uu geystay waa la og yahay dad kun kor u dhaafay ayuu waxyeeleeyay wuxuu baabiiyay ilaa 600 oo guri in ka badan buu baabiiyay wuxuu baabiiyay infrastructure-kii magaalada oo dhan buu baabiiyay hadday dhakhtaradii noqoto hadday masaajidii noqoto hadday iskooladii noqoto hadday guriyihii shacabku deganaa tahay hadday tahay hadii meel kasta magaalada light-keedii power stationadii waxaas oo dhan waxyeelo u geystay maantana magaalada kala badho bar waa dansan yahay shacabkii magaalada deganaa waxaas uu ka qaxay halka yaala intani waa symbol laakiin magaalada qaybo ka midii ama intooda badani waa baaba'san yihiin marka waxyeeladaas dalka ka dhacday ilaa bishii February intii loo gaaray duqayntaasi waa soconaysa
wixii ka horeeyana ciidan hubaysan baa magaalada dhex joogay ciidankaasu dad 40 ku dhow ku laayay magaalada gudaheeda oo qoryaha darandooriga u dhaca lala dhacay dumar caruur iyo waayeel bay ahaayeen dadkaas ay hore u laayeen ciidamadaas arinta sababtay in dadkii deegaanka lahaa ay kacaan oo ku kacaan iyagoo aan awal baraali ka ahayn culayska soo wajahay baa sii xoojiyay maantana culayskii wuxuu marayaa in duqayn magaalada banaankeeda laga soo duqeeyo in meel aan loo aabayeelin in isbitaaladii dhaawaca dadkii ay soo dhaawaceen iyo ku ay yaaleen ay duqeeyaan inay iskooladii duqeeyaan inay magaalada guryihii kala duwanaa duqeeyaan inay goobihii cibaadada duqeeyaan inay meel la aanay u aabayeelin inay magaalada soo dhigaan bay wadeen ilaa iyo bishii February intii ka horeysana Michigan baa lala dhacay dadka qoryaha boobayaasho sikaawe shilke iyo dhashiike iyo Brown 50 iyo qoryahan suuga iyo transistor la yiraahdo bay dadka la dhacayeen intii ka dambeysana duqeyntaas ay ka wadeen magaalada dhexdeeda wixii laga soo sample ahaan looga soo qaaday way waxaan aniga hadda hortayda yaala qorigan oo kale waa nooc kamida qoryaha hoobiyaha waka wuxuu geysan lahaa waa geystay qorigan oo kale waa jiib qayb kamida ay qaybtii goog chachapkii goog ay waa ka halka yaala waa qayb kamida oo qoriga jiibka la yiraahdo jiib weeye 105 baa la yiraahdaa qorigan oo kale waa basuuke qayb kamida gumciisi hore oo kala go'ay weeyaan isagana ayar gubtii qaar baa nool oo waa kuwa qaar baa nool ilaahay haduu ku reeyay kuwan oo kale iyakuna waa la mid weeye nooc kale oo hadii la ku reeyay qoriga la yiraahdo isagana hoobiyaha nooc kamida weeye qoriganina waa nooc kamida kii hore uu ka duwan yahay waad aragtaan oo isuma eka isumana leeka kuwan oo kale waa biitan gumciyadaas burburay oo qayb kamidii ay ka soo hadhay waa kuwa waa biitan weeye kuwan go'ay waa qoriga jiibka la yiraahdo weeye dad iyo dunya wixii uu arko waa baabiyi chachapkiisina waa ka chachapkaas qayb dadka wax u yeelay oo baabiyay magaalada iyo dadkii deganaa waxa ka dhacay wax aan caadi ahayn weeye waxaan caadi ahayn baa ka dhacay ilaa bishii February ilaa maanta oo bishii shanaad 25keedii la joogo 26keedii la joogo waxaas waa soconayeen maalin qura ma joogsan dadkan dhulka degan waa dad shacab weeye military-na maaha ciidamo meel kale ka soo duulayna maaha waa dadkii shacabka ee deegaankan iska lahaa bay abaabulay meel uu gaadhaba xoogoodu way istifaacayaan magaaladana iyaga ka saaray colka soo galay ee soo duulay inta hadhayna iyaga ka saaraya hadii alla idmo anagu waxaan tilmaamaynaa waxyeeladii ay geysteen hubka dadka rayadka mamnuuca ka ah inuu ka yahay cid kasto u baahantana sida loo tusayo arinta anagu aanu ka hadlaynaa waa taas wixii ay dumiyeen iyo wixii ay waxyeeleena saxaafadu waa ay soo aragto kamaradaha ku jiraan dhakhtaradana waa booqdeen oo waa arkeen ama kuwa loo qaaday dadka ha noqdeen ama kuwa magaalada ha noqdeen way booqatay saxaafadu waa aragtay dhulkay burburiyeen ee ay dhulka dhigeenna dhammaan waa soo duubeen oo waa arkeen hudheeladii ay baabiyeen aan waxba ka hadhin hadir dumin mooyaan wax dhulkii banaanaa mooy wax ka hadhay aan jirin waa soo arkeen gurigana og kii gudiga ku shaqeynaysa gudihiisa duqayntu waa ku dhacdo waa burburis gudihiisa la arki doona oo la geli doona wixii ku soo dhacayna way ka muuqdaan oo wax la qarin kara ma waxay doontaba ha noqotee anaku hawsha tani anakayna la gudboontahay laakiin dunida waxaan tusaynaa cidii iyaka taageersanayd ama ku caawinaysa waxay sameynayaan waxay soo rideen iyo waxay geysteen waa kuwa annaga waxana dhex yaala annaga inoo taala saanu xal ugu helo annaga bay noo taala muuse wuxuu yiri maalin dhaweeto hadlay wuxuu yiri 18 bisha May wuxuu yiri joojinta dagaalka annaka furaheeda haysana
joojintana annaga haysanna furaheedii bilowgiina annagaa keennay waana ku tusaynaa iyadoo aan wakhti fog ahayn inaannu soo afjarro dagaalka oo ay dani kugu qasabto meeshaannu hore kuugula talinay inaad aaddo inay dani kugu qasabtaan ku tusaynaa waxaasi waa waxaana horyaal ciidamadiisaa soo riday isagaa amray isaga iyo ciddii ka hoosaysay amartay taliyaha ciidamadoodu ka mid yahay kan bileysku ka mid yahay ka arrimaha guduhu ka mid yahay ka xanaanada xooluhu ka mid yahay ka gaashaandhigu ka mid yahay intaasoo dhan waa raggii dembiyada ka geystay deegaanka kan wey dunidu waxay ka odhanaysaa ama sharciga caalamiga wuxuu ka odhanaya isagay u taal annaga waxaana dhex yaallaana annakay noo yaallin wixii ay soo rideen iyo waxay geysteenna waa kuwa dhulkay la dhaceen iyo dadkay la geysteenna saxaafaddaa tilmaami doonta oo sheegi doonta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale waxaan indhahayga ku soo arkay baaxadda iyo xajmiga ay leegyihiin bamka iyo rasaasta lagu garaacay Laascaanood halkani waa cusbitalka weyn ee magaalada Laascaanood waxa uu ka mid yahay meelaha ay bartilmaameedsadeen jabhadda Asad waxaanu idiin soo gudbin doonaa sida ay wax u gaadheen iyo khasaaraha guud ee soo gaadhay cusbitalka guud ee Laascaanood isaga oo lagu dabiibayo dadkii banaanbaxayay ee Soomaaliland ay iyaga laftigooda ku laysay maxay ayaad u hadlaysaan ayay haddana la soo eegteen duqeymo bartilmaameed ah kuwaasi oo lagu tilmaamay inay uga dan lahaayeen curyaamin bulsho iyo inay sii badiyaan khasaaraha waxaana halkan ka dhacay dhaawac noqday dhaawac kale dhakhtar u dadaalayay badbaadinta ruux dhiiggeedu daadanayo oo isaga laftiisu meyd noqday kadib markii uu haleelay moondarka laga soo tuurayo buuraha dabadooda bismillaahi raxmaani raxiim magacay waa Iftaax Maxamed maamulaha guud ee isbitaalka weyn ee Laascaanood halkan iga dambaysa iyo meelo ka mid ah isbitaalka waa meelihii malaafiicdu ay ku soo dhaceen xilligii dagaalku ku socday ilaa iyo haddeertada uu dagaaladu ay socdaan ay ku soo dhacaan waxaa jira goobo badan oo isbitaalka ka mid ah oo ay soo gaadheen khasaare baaxad aad u weyn leh oo aad ku arki kartaan indhihiinna ay ka mid tahay goobtan hadda ay taagan oo ah goobtii militariga goobta kale iga dambaysa oo ah goobtii kaydka dhiigga ee isbitaalka oo gebi ahaan isla burburtay oo aan ka guurnay iminka sidoo kale goobtan kale oo nagu xigta waa qaybtii VIP-da ama bukaan jiifka aan ugu talagalnay iyana ay khasaare soo gaadhay waxaa jirta qaybo kale oo aysan haddeer kaamarada qaban oo ah qaybta HR-ka solar systemkii matoorada meel kastoo wax ka jireen macnihii dhaqaaqa isbitaalka inay damiyaan oo ay hakadgeliyaan shaqada isbitaalka waxaa jira khasaare soo gaadhay dee naf iyo maalbale oo arki kartaan waxaa jiray ambalaasyo iyagoo dhaawac marka keenaya ay kusoo bartilmaamsadeen oo ay ku dhacday halka isbitaalka hortiisa hal wiil baa ku dhintay ambalaasta markuu Southpool oo shaqaalaha ambalaasta ahaa iyada laftarkeedii dhaawac baa gaadhay sawiradeeda iyana waa muujin karnaa haddeer inkastoo ay ku maqantay shaqo oo ay soo qaadaso dadka feerala shaqaalo kale oo ka mid ah isbitaalka shaqaalihiisii laakiin dhaawac ay soo gaadheen oo alxamdulilah ilaahay dee u sahlay laakiin iyagoo ay damacsanayeen inay dee qudha ka jaraan dad kaloo marka jooga bukaan ah oo horey u jifay waxyeeladii ay ku gaadhsiiyey maraafiicda madaxa ku garaaceen oo naloo keenay annaga iyagoo dib loo daaweynayo oo xaaladoodii lala tacaalaynayo haddana marka ay kusoo dhaceen oo xaalad kale ay sii galeen laakiin alxamdulilah aan ku guulaysanay inay dee ka biskoodaan nabaradii xaqdarada ahaa ee ay soo gaadhsiiyeen maleeshiyaadka Somaliland sidoo kale oxygen-ta oo ah meesha kaliya dee oxygen hadda gobolka marka la yiraahdo ka shaqeysa ama ay leedahay iyana ay mar gaadhsiiyeen dhaawac alxamdulilah hadda ay noo shaqeyso dib aan u hagaajisnay wax kastoo ay gaadhsiiyeen dhaawac ama ahaato magaalada ama ahaato isbitaalada waxaan kasii qaadanaa marba fircooni kale iyo inaan dee intii shaqadii aan kasii laba jibaarno iyana ay isleeyihiin intaasay kaga ekaanaysaa oo macnihii waa way ka daalayaan laakiin waxaan u sheegay inaanu daalayn oo shaqaalaha caafimaadku mar kastaba heegan buuxa u yihiin
كل خسارة أنت بعد الخطوية حرقات نجومها المغيا بها صحفة دروش تي في وقامي أقسم يوسف سحرديد يا شغالة على الله الصعداء لما أنت وهم العلمية والسلامية ogaano nooca iyo qaabka ay wax u laayaan madaafiicdani waxaanu xidhiidh la samaynay saraakiisha sarsare ee madaafiicda aqoonta fiican u leh oo haatan iyagu difaaca kaga jira meelaan sidaasi uga fogayn taliska gooja cadde kadib markii ay dani ku qabatay hadda adaan warwariyaha aanu warbixinta aanu siinayna waxa weeye xoogaa su'aalayna weydiiyeen warbixinta marka aan bixinayna waxa weeyaan madaafiicda nimankan shabhadan argagixisada ah ee duulaan ku timi laascaanood madaafiicda ay ku ridayaan waa dhowr qaybood oo kooban dhowrka qaybood number 1 qoriga loo yaqaano 85 iyo qoriga loo yaqaano hoobiye 125 biti iyo 105 waxaa soo raaca kaara hubkaas wuxuu u badan yahay hubkii ruushka dowladda Soomaaliya ka dhacday ruushka laga xaray muuse wuxuu ku hanjabaa oo tirtir isirnacayba ayuu wadaa laakiin waxaa tirtirmaya ka dhoofka ku yimi damaaciga uu keenay dalku waa Soomaaliland wuxuu ahayd wixii Ingiriisku gumaysigu uu sameeyay insha Allah waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inaanu uga taqalusno dadkan uu meesha ku xareeyay uu ku baabi'inayo bila caqliga ah sida ugu dhaqsaha badan ayaan u tirtiraynaa xoogaaga haray in ujeedadu waxay ahayd inay ku dhamaadaan meesha waanu saba raacaynaa go'aanka ay qaateenna waanu la qaadanay insha Allah waxaan rajaynayaa kuwa ay leeyihiin inaanu dhawaan aan isku qabsano oo sida ay magaalada iyo maasida u burburiyeen kuwoodana inaan u burburino marka waxaan ku soo dhaweynayaa hadda warkii waa badiyay korneel tuur reelaas aanoo warbixintii maalintii hore taliyaha madaafiicdu u ilisiyay waad haysaan go'aankaana anna waa la qaatay ee u ahayd mid dambe hadday idinku soo ridaan gacmaha la gooyo أنا ما أنت كذا بلايه أرجو سريع هو ياش بقولي لا تنك سريع أنا ويقص الرأيو ما في ذاك لا شيء وبحيب عن ملك بحنايا قولوا ما شو كسب بعد ما راح هنا بيكسر من إن شاء الله هذا الله كديكو كودا أنا بربرينا آخر كون تنبيانا ما قالوا يكونوا بنفوق بسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالماسة استقال كنيجوري هذا وربحنتن كوبان ورياش إنه يمد يوسف عرديد إيو ورياش كلا ود سلامنا وحفي عم بدودانو ديجان كأن ترى ريع كريبتان وحدث كأن الله رعيه هذه أدمى يكون بقادنيا وحوي وحي ننقر جرهدية ننقر كرهدية مستقبل كحلا نكرر بعدت كالناس دعوت بافران دت كأن واحد لو قراعيه إذن كهرات ريع عيدا اللي نكرره وأنا ذيك بقادني يا هوشاس الودان مركان إذا هذا واحد مقالة لو سو قراعيه مقالة هو كلا قدسم حيا لو قراعيه هو كلا قدسم لما كان واحد مقالة هو قراعان وهوي نوعية قريح ارتفاع وكمد وغلي شن وكمد تعصد وكمد qorigan taangiga saaran ee taangiga qore ku rakiban ugu badan ee magaalada ku soo ridaan waa qorigaas waa kamid BM kan yareer ee shaqada deegaankan looga yaqaano ee gaariga wanajka saaran ee rokotka waa kamid tradition mileeda waa kamid oo 13 dhuumood isu saaran hub badan oo kala gedisan ay dadka ku garaacayaan qoryahaasna waxa weeye qoryihii hore ee dawladda Soomaaliya ay ka tagtay waxa weeye wax dib ay nimankaasi waxana ay Djibouti ka heleen
waxna ay xilligii Umar Zanaawi u haystay Itoobiya ee Soomaaliya ciidamadu ay galayeen Itoobiya berbera ayaa waxaa ka degi jiray hub fara badan oo dalka Itoobiya u socda qorigan rokotka oo kale xilligaas ay kar ahaan u qaateen oo dekada ku kuraysteen qoryo kooban weeye qoryo badan ma qoryahan hoobiyaasha 120 iyo Air 2 iyo Air 1 saddex qorina waa waxa ay magaalada ku qaracaan waa kamid waa qoryaha ugu badan hadda Djibouti ay soo siisay waxa kale Djibouti siisay waxa kamid ah qoryahan anti-aircraft-ka anti-aircraft waxa la yiraahdaa qoriga raalada leh Zu iyo 37 iyo wixii lamid ah qoryahaas ayay Djibouti qoryaha ku caawisay dabaka dhiibka qoryahaas u badan ama seeka uu qoriga leeyahay ee fadhiga ha ahaado ama shilka labada dhuumood ha ahaado qoryaha ugu badan ee hadda Djibouti ay bixisay ee dadkan lagu dagaalamayo kuwaas ku jira marka waxa weeye sababta dagaalkan iyo garaacistan ilaan ciidanku meel buu joogaa marka laba ciidan ay soo fadhiyaan meel bay joogaa ciidanku waxana waxa weeye dad shacab oo magaaladii jooga waxana waxa weeye ciidan soo fadhiya ama maleeshiyad ha ahaado ama military ha ahaado ciidanka hor fadhiya intii xabad soo dhaafiyaan bay shacabku garaacayaan marka xabadaas waxa weeye dhulbaanta doono iyo fiqishan iyo madhibaan dadka deegaankan degan kulli cid la waayay meesana guri ku dhuf ay u ridayaan waxa ciidanka hor ku dhaca wax kooban laakiin daartaas ay arkayaan daartaas ay garaacayaan waxay u garaacayaan waxa weeye dadkaas Muuse afkiisa ka sheegayo wuxuu yiri deegaankuna waa Soomaaliland dadka joogana waxna waa leeynana waxna ka qaxinana garaacistu taas keenaysa oo wax nacayb oo maartay ku talaalan nimankan ay kaga amar qaadanayaan Ilaahay baan wax dila wax Ilaahay ka soo mara dhinac oo cid ku dhici kara ma jirto haddii si xun loo dhimanayana iyaga daalimiin oo deegaanka iyaga nagu haysto inaanu ku marino ama maartay gacanta sare yeelano xaqan noo ayaa maartay inaanu deegaanka iyaga ka saaro nimankaas wax ka liita maanta garan maayo nin deegaankiisa nin isagoo kale sheeganayo wax ka liita oo aan garanaya ma jirto dadkaasina dhimashadan aad uga badanaya dhaawacana aad uga badanaya mustaqbalkana deegaankooda iyaga waday xaqiiq weey kuwana meesha waxay u joogaan anigu waxaan ogahay inay amar ku joogaan oo ay in ciidankaas oo isagoo nool noqda iyo ciidankaas oo meesha ku dhamaada Muuse waxa u khayr badan in halka ku dhamaado sababtu waxa weeye haddii maanta uu ciidanka dib uga saaro deegaanadan wuxuu aaminsan yahay oo maskaxdiisa ku dhacday in ciidankaasi uu isaga arqarad ku yahay marka halkaas ku haynaya halka cidii la rabay inay ku dhameystaan weynaga go'aankana Muuse waa la qaadanay insha Allah ta'ala dadka iyagana waxaan wuxuu doono harido deegaankan annaga iska leh annaga Ilaahay nagu beeray annaga u hadhayna xaqiiqadu waa taa waxaan doonayaa inaan ku gabagabeeyo Muuse ama nimankaasi waxay yiraahdaan wadankan Ingiriis baa noo calaamadiyay Ingiriis anagu waa la dagaalanay deegaankan xorriyadiisa aan leenahay kuwii isagu maxmiyada ahaa ee nalaga ilaalinayay ee Ingiriiska kala aha balkii ha keeno Ingiriiskii annaga waxa nagu yiraahdaa dadka ka faallooda siyaasadda arrimaha aadanaha dhacdooyinka geeska bariga iyo bartamaha Afrika waxay dhammaantood qirsan yihiin in Muuse Biixi iyo maamulkiisu ay falal dambi oo waaweyn ka fuliyeen Laascaanood kuwaasi oo isla xibtaabtankooda u imaan doono maalmo aan fogay Yuusuf Saxardiid warbaahinta caalamiga ah ee Darwish TV magaalada Laascaanood